بسم الله الرحمن الرحيم أبا ما تنتهين وفريسة كرتان أبا ما تنتهين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما محضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة هوراء وحرادي المحضر قينا حديا أيضا هاي ضمان بهوية الكلمية ومدحوينه وليس ياهي وحنو آدي سوء الويرينا قربك قلت وهرقامنا أيو مشرحي هو جمال علي الحسين وحول يا أقوم قدوه يدي بدبع والبجور قولي يقول البجور قولي وحيده كل بسوء حوجيه وحنونا يسوء هذا كريلا بسوء هذا كلمية بسوء هذا آدي ما تنتهي وحكرون دونينا العدية ساعدها إن لما تكملين حزبك كلمية سر رسمي ولنا يلمانتا وحجنا صدح بعضو أو تاريخ تقري دون أيام ما تهرقيسة كتيرا ومركة كوبادة من واتنا نقود بابدأ oo garabkii iyo xoogii garabka niyuuciga xisbigaasi oo ku soo xoojiyo ku soo biiray kulmiyo waa dhacdo aad iyo aad taariikhda u galaysa oo xusuus qurxeeda waxa kaloo aan soo dhaweynayaa maanta halkan aan ka soo dhaweynayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin oo intii xafladda socotay ka soo degay airportka ayana waa munaasabad aan leenahay madaxweyne ku soo dhawow dalkaaga آدي أدم سلوينا أدم كلنا هاي مدحوين ولا قلق سمارنا تصدحات أنت ساك أنت نقول قابل كجري وحيسن ردك بسوق علي لنا عقولك أو هذانا دوفين دور قلتو وإن حفلتك كم مسؤول سلوينا يسقى أول نبض وضع يسقى أول قضايا يسقى أول سمار الله إن شفت هذا وضع مضارع عالي خلف غريب ما توا مالك وسط Somaliland أو ضرف إلا ضرف ست من يدو يسهل شري ميديا وحكار كيسين لمن أرينا وعلى خليف كل هذا Somaliland موتبي أو لمن تقليه وحنوينا هاي ويارك بيدانا هاي وحنوينا هو قال دوتان مر ويارك نبضة هي حلقة هي الدنت هالك يقول شفتها أي كوت هاي نبضة سومرنا على خليف وقفهم مرينا وكوقاتي وكحنا هدياتك بسوق عندي والريا بنا الرجال السياسيين كل هذين على خليف نبض والله maanta geeska Afrika nabad buu baahayaa dunidu nabad bay baahantahay Soomaaliland nabad bay baahantahay waxaan leenahay cid kasta oo nabad wada waa bogaadina waa taageerina Cali Khaliif nabad oo wado iyay maanta ka wargeysa maanta uu soo galay isagoo nabad raadinaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waa ku garab taagan waxaan raacinayaa dhibaatada ay leedahay aragtida gaaban ee qabyaaladda ولا على خليف وبروفيسور أتقالين وعمريسي يا نورشيسي أقويان وحبضا ضلك صوماليين صوماليين ما يعرف كله إن بدن أيها هذه قبيلة واحترسوا وكوا ما أنت بورجس دور تاعي كانها واحد دوريان وهو جالسنا إن بدن بودي بتشري إن بدن بدور كموتشو تيو أنا هاي بدر كمار بنايو إنه إيجا نرشوا الميدر هذيو نصيب درو aragtidii qabyaaladda soo gaabatay waxay keentay ninkii iyaga naftooda u huray inay maanta ixtiraam darro booliis loo taagaan taasina waa abaalka qabyaaladda ninkii qabyaaladda wax moodayo Cali Khaliifna waa ka xunay waxaa gaaray waanu garab taagan mashruuc malaa waa ku dheeraaday waana mudnay waayo waa arrin mabdi'iya waa arrin caqliyana waa arrin masiiriya maanta saa ka dhacday arrinta caqliga waxaan uga gudbayaa laba qodob oo kooban waa ta koowaad maanta waxa aloosan sanadkan doorashooyin
waxaa socda inkastoo dowladda doorashadii Soomaaliland waxa kale oo socota doorashadii Soomaaliya 25 sanadood waynu kala laalaadnay inaga iyo Soomaaliya oo caalamku ay kala saarnay waxaan ku soo koobayaa madaxweynaha Soomaaliya ee maanta jooga Xasan Sheekh iyo kii ka horreeyay iyo ka soo socdaba wuxuu ku dhaaran doonaa inuu ilaalinayo midnimada Soomaaliya bal gardarrada halkaa ku jirtaan idiin sheegayaay iyagu isla aqoonsan inay Somaliland ka mid tahay waxa ay Soomaaliya ugu yareen ku dhaaranayaan waxaan leenahay taasi waa deeqaaf mana geyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadda jooga iyo kii ka horreeyay iyo ka iman doona waxa lagu dhaarin doonaa qarannimada Somaliland iyo inay Somaliland qaran madax bannaan oo Soomaaliya ka mid ahayn horta walaalayaal reer Somaliland iyo reer Soomaaliya iyo geeska Afrika iyo caalamka waxaan u sheegaynaa labada dhaarood baa soo taaganoo tabeeroodo waa la arki doonaa laakiin waxaan idiin sheegaynaa xisbiga kulmiye maanta iyo shalay iyo darraad mid walba inuu yahay xisbiga ku dhaarsan ee dhiigu hore dhiiga u uri doonaa qarannimada Somaliland oo aan cidda ka mid ahayn iyo berritaba waxaan u sheegaynaa inuu ka rajaynaa xisbi wal oo Somaliland ka jira inuu dhaartaa ilaaliyo xisbiyada Somaliland saddexda iyo qaranka waxaynu ka midaysannahay qarannimada Somaliland waxaynu ka midaysannahay in aan qof aan aqoonsanayn qarannimada Somaliland aan waxba naga dhaxay xisbi walba distoorkiisu waa ka qaranku ku fadhiyaa distoorku ku fadhiyaa taasay dooranayna xisbiga kulmiye taasuu ka bareerayaa oo uu sheegayaa cid walba Soomaaliya ragga xukuma ee maanta tartamaya waa isku qayb waayo mid walba wuxuu dhaartay inaan Soomaaliland aan ugu guray qarannimo anagu uga magan qarnimadeeda uga magan maahin laakiin waxaan u sheegaynaa inay ku tashadaan barnaamijkooda sidaynu u kala guran lahayn aynu Soomaali waynu wada nahayeen Soomaali daris oo walaalo laba qarana sidaynu u noqon lahayn baanu ka rabnaa fikirka kama rabnaa inay ku dhaartaan Soomaaliland baa xukumaya caalamkuna waxaa leedahay waa gardarro aan la qabanintaas cod dheer baan ku sheegaynaa qodobka labaad arrimaha gudaheeda waxaan soo dhawaynayaa dardaarankii ninkii dhalinyarada Yuusuf iminka uu yidhi ayaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa oo aan leeyahay haddaynu kulmiyanahay dhammaanteen ereygaa uu yidhi sharcigu ha sarreeyo oo sharciga ha loo hoggaansamo isagaa qoran lagu noqon karaaye meel laga mare taasaa inoo guddoona haddaynu nahay kulmiye horena wuu inoogu ahaa horena waynu isu farray maantana way isu celaynaa intaynu heshiis ku nahay waa sharciga oo koowa oo cid walba ka sarreeya waxaan ku soo gabagabaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maanta waxa haysata abaar ba'an ilaahay waxaynu ka rajaynayaa inuu abaaraha inaga soo jebiyo roobku wuu curtay waa qurux badan yahay ilaahay roobka haynoo siiyaa waxaan intaa u dhaafayaa dhammaan dadka Somaliland meelay joogaanba haddaanu kulmiye nahay waxaanu horseed ka nahay midnimada Somaliland wada noolaanshaha Somaliland is-aaminida Somaliland dalkeennu wada daafacanno iyo danteedanu sii midaysan oo xaqa horumarkeeda uga wada shaqayno haddaanu kulmiye nahay intaasaana lagu soo hagaagayaa oo aanu Somaliland u sidnaa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu